anigu waxaan aaminsanahay dawladnimada Soomaaliya iyo qarannimadii burburtay in dib loo soo celiyo oo hana qaado waxa hortaagan dadka Muqdisho uga soo duulay 2,000 kilomitir ka shaqe kuwaas oo kuwii 1982 soo galiyay ciidamadii Mingiste magaalooyinka Ballanballe iyo Goldogob 2006 ku soo hogaamiyay ciidamada Meelzanawi inay qabsadaan dalkii oo idil waxa riixaya ay tahay damac waalida ah iyo hungurweyninka saayidka ah ay kaga gedisan yihiin Soomaaliya inteeda kale waa kuwii ugu horeeyay Soomaaliya oo dawladda ku soo weeraray ciidanka Itoobiya si ay barqad cad qabel xukunka ugu boobaan waxaan fariid leh in ciidanka cadawga ay maanta Soomaaliya u soo horkaceen ay yihiin qoomkii uu ka dhashay Abraham ee weeraray Kacbadii Ilaahay 1400 sano ka hor Ilaahayna uu soo diray nasrigiisa oo sidii cawska loo cunay Ilaahay wuxuu Quraankiisa Kariimka ku yiri faj'alahum ka'asfin maakul waxaan u haystaa kuwaasi inay yihiin kuwii naxaska ku qaaday qarankii Soomaaliyeed ee meesha ka saaray kalsoonidii iyo walaaltinimadii ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay iyo jacaylkii Soomaaliya soo gurman jirtay weligeed kuwaas oo kuwii dawladnimadii Soomaaliya ka dhigay Dumaale iyagu gaar u leeyihiin 1967 ilaa 1969 koorintii aan Ilaahay ummadda xalaasha ee Soomaaliyeed u soo dirin Mahdigii dhintay Maxamed Siyaad Barre wuxuu yiri gabyaagii doodaan war maxaad reer hebel uga dhigteen boqor Dumaale yasay kuwa aan ka hadlayo kuwa maanta u ololeynay inay dalka gumaysi galiyaan si ay u helaan kursi madaxtooyo oo niman ay ka muuqato inaanay noolaan karin inay dawlad wax ku cunaan ma ahane buugaagta qaar ee Soomaalida laga qoran ay ugu yeerto afarta dawlad ku nool waa kuwa u haystay inay Soomaaliya iyaga ugu aqli badan yihiin laakiin on the contrary iyaga ayaa ugu aqli xun ismoog aqalkii bay aslaysaa ismana oga waxay dhaqan u leeyihiin haddii dawladnimada loo dhiibo inay ummadda ku tuntaan bahdilaan sharafkooda ku iibsadaan waxaan ummadda Soomaaliyeed u qaadmin aan ku banaanayn ma ahan dad ummadda Soomaaliyeed matali kara mana ahan dad wakiil ka noqon kara dadweynaha wali ma arkin shakhsiga ka tirsan arrintan ka diidiyay taasoo cadeynaysa bah iyo boqor inay ka midaysan yihiin ma ahan koox xishoonaysa waxay garaacayaan albaab walba waxa ugu sarkaalsan Kolonel Cabdullaahi Yuusuf waxa ugu siyaasan Kabtan Cadda Muuse waxaana ugu suxufisan Xuseen Xoob Sareed Idamaale diblomaasigooduna waa Zari oo ku andacoonaya inuu 40 sano diblomaad ahaa ujeedada ay leeyihiin iyo talagalkoodu wuxuu yahay in haddii alla ku roon yahay ummadda masaakiinta Soomaaliyeed cunaha qabtaan oo ay dhiigooda cabaan haddana xasuuqaan xoolahooda dhacaan boobaan wixii ay xiri karaan xiraan isla markaana ay sidaas ugu dawladeeyaan waa kuwa isku dayay inay ummadda indhaha ka xiraan afka ka xiraan dhagaha ka xiraan gacmahana ka xiraan waa kuwa maalin walba dalbanaya in la xiro idaacadaha madaxa banaan ee Muqdisho si aan loola socon hagardaamada iyo halista ay lahow tilmaamaynayaan wuxuu yiri maba dhalan dhowrtaysan oga ma aha niman dameer islaamnimo leh mana aha niman dareen Soomaalinimo leh waxa mucjiso ah inay 30 sano kadib si indhalaan ugu socdaan dariiqii ay ku soo jabeen sida awadeed waxaan ku baaqayaa in ummadweynta Soomaaliyeed meel ay joogtay u istaagaan sidii la isaga caabin lahaa nimanka dalka soo galiyay ciidankii Abraham ee ku indhacad inay sida dawlad ku noqon karaan sida kaliya ciidamada Itoobiya guul ku gaari karaan waa inay fadqallo iyo kala qaybin ku sameeyaan ummadda ku nool caasimadda waana in dadweynuhu ka feejignaadaan arrintaas oo isu buuxdo u midoobaan waxa ay muuqata inuu ka soo socdo Soomaaliya xasuuq lamid ah ka dhacay Rwanda ee Hutu vs Tutsi Soomaaliya ma lahan maanta wax dawladda waxayna ku jirtaa xaalad ka xanuun badan tan Falastiin waxaan hadaba ugu baaqayaa waxgaradka xamar in wixii heshiis ah ay la galayaan ciidanka Itoobiya ay ku casuumaan wadamada la eelka Soomaaliya sida dalalka Islaamka iyo Carabta iyo kuwa saaxiibka la sida Talyaaniga iyo dalalka kale ee Yurub waxaan kale ku dhiirigelinayaa xoogagga wax iska caabinta insurgents ee u istaageen dib u soo celiyaan sharafkii ummadooda waxaana ku kalsoonahay in Ilaahay uu guusha siin doono oo ay ciidanka Itoobiya ka bixi doonaan Soomaaliya iyagoo seenta dabada ku jiidaya waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in kuwa qoomkii Abraham soo galiya dalka ay maraan meeshii ay mareen asxaabul fiil amiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh